kulankan ay yeesheen laamaha xisbiga wadani ee dalkan Sweden laguna dooranayay hogaanka cusub ee xisbiga ayaa ka qabsoomay magaalada Stockholm waxaana kulankani ka soo qayb galay taageerayaasha xisbiga ee dalkan Sweden waxaana ugu horeynba kulankani hadal ka soo jeediyay qaar ka mid ah xubnihii hogaanka xisbiga hore u hayay gudoomiyihii hore ee xisbiga Bashiir Bakal ayaa ku dheeraaday waxqabadkii muddadii ay xilka hayeen isagoo dhanka kalena kula dardaarmay xubnaha cusub inay halkaasi ka sii wadaan hawlaha xisbiga waxaan maanta halka ka shaacinayaa muddadii xilkaan soo hayay oo ugu mahad celinayaa intii la soo shaqaysay iyo guddideediiba aniga guddideedii inaan xilkii halka kaga degi doono oo aan idinka qacantiina ku soo celin doono si aad ugu garataan hoggaan cusub oo idinku aad qacantiina ugu doorataan una furan tahay cid kasta oo isku sharixi karta si dimuqraadiyadda xisbigeenu uu u dhismo una hagaago horumarna u sameeyo inaguna waxaan u baahnay maanta ilaa inta doorashada dambe dhici doonto 2-3 sano ee soo socda inaanu hayno dad shaqeeniyo dadaal badan karti badan oo xisbigii kor u shaqada halkan u taagan yahay waxa iyadana halkan inoo taagan magaalada Stockholm shirkeedii oo aanu iyadana dabada waqti dhow aynu qaban doono weegani markaan ugu soo foolay gabagabadiina waxaa kulankani ka hadlay Maxamed Cabdilaahi Kaahin oo loo doortay gudoomiyaha cusub ee xisbiga kaasi oo hore u ahaa xogayaha shuruucda ee xisbiga ee qaaradda Yurub iyo gudoomiyaha xisbiga wadani ee magaalada Stockholm Maxamed Aadan Gowlalaale waxaanay uga mahad celiyeen taageerayaasha xisbiga ee u doortay xilkani iyagoo ballan qaaday inay si dardar gelin doonaan howlaha horsocod ee xisbiga waxaa maanta halkan runtii nooga dhacay shir aad iyo aad u qurux badan oo muddo badan aynu sugaynay kaas oo aynu doonayno in aynu dhiig cusub ku shubno xisbigii waxa weeye raggii halkan ka kacay iyo intayada imika imanaysaa isku mid baanu nahay magacuun baad moodaa inaynu kala bedelanay laakiin isku mid baanu nahay meel ma tegayaan hawsha sidii bay u wadayaan Somaliland waa wadani waayo waxaynu ognahay 60% maanta haddii la codeeyo waxa weeyaan dadku waa wadani maxaa hadaba la doonayaa waxa la doonayaa inagoo ilaashanayna oo calanka saddexda kalar leh kor u qaadayna in aynu isberber taagno qarankeena waxaan doonayaa inaan idin sheego haddii aanu calanka Somaliland aanu jirin haddii aanu calanka Somaliland aanu jirin calanka wadanina wax jiraya maaha waynu arkaynaa waddankeennii wuxuu u gacan galay waxa weeyaan askar aan sida wax loo xidho iyo sida wax loo dilo mooyaane iyagu haba yaraatee aan xirfad kale oo ay leeyihiin aanu jirin hore ayaynu taa u soo aragnay inaynu hore uga soconnaaba ahayd laakiin 28 sannadood maanta in la yidhaah bandooda lagu soo rogayaa Somaliland oo 5 dimuqraadiyadood 5 madaxweyne soo bedeleen waxaan leeyahay waa nasiib darro anigu waxaan ahaa xusbiyahan ka tirsanaa xusbi xaakimka maanta talada haya muhiimaduna waxay tahay shaqo badan baynu gelaynaa umayna soo gelin xusbiga xaqiiqiga shakhsiyan anigu ma soo gelin boos waayo muhiimku ma aha booska ama qofka loo magacaabo ama gudoomiyaha ugu sareeya ha noqdo muhiimku waa jamhuuriyadda barakaysan ee calanka saddexda midab leh shacbigiisa sidii aynu u midayn lahayn ee meel aynu gaarsiin lahayn waa Maxamed Awood Maxamed Sab TV Gothenburg Sweden